qoraada yar baan ahay waxaan kamid ahay gabdhaha Soomaaliyeed oo daada yar ku nool Soomaaliya wax ku bartay ku barbaaray jacayl dadnimada iyo dad Soomaalinimada aad iyo aadna u taageeraan dawladda Soomaaliya waxa igu soo weey kitaabka inaan qoro xilligu ra'iisul wasaaraha ahaa Farmaajo inan yar baan ahaa aad uma kala xasuusto laakiin waxaan xasuustaa in aad loo jeclaa maalmaha kamid ah dad weydiiyay waxa ay sababta loo jecel yahay la ii sheego waxa la ii sheegay inuu ahaa nin aad iyo aad xilliga ra'iisul wasaaraha 6 bilood hayay aad iyo aad u shaqeeyay shacabka aad u shaqeeyay sameeyay yani amni aan la haysan xilligaas helay waxaan jeclaystay anuu markaa inaan wax ka qoro sidoo kale waxaan joogay doorashadiisii baan joogay cidna ima maalgelin cidna iguma taageerin cidna ima sheegin inaan qoro waxaan u taagnaa in badan bulsho Soomaaliyeed oo madaxdooda caynaysa madaxdooda aan amaanayn maanta ay leeyihiin qof kasta ay horta ma wanaagsana daliil Soomaali dadku waa wada leeyihiin waa bilaadan Ilaahay baa dhameystiran dadkeenu ma oga laakiin inuu qofka madaxweynaha inuu bilaadan yahay oo uu daliil yeelan karo sidoo kale waxa igu dhalis oo igu darnay anigu inaan qoro waxaan arkaa dalal shisheeye oo madaxdooda amaanaya anaguna waxaan ku caan baxnay oo dadka dhankaga duwanaha ummadaha dunida jooga oo kaga duwanahay waxaan dhalinaa madaxdeena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taariikh soo dhameystiran baa ku jirta waaya waxa daliil u tahay inay jiraan dhalinyaro wali nool oo dhageysanaysa hadalka uu dhahayo qoraysane hadalka uu dhaho waxa ku qoran kitaabkan sidoo kale daqiiqaduhu dhahaya iyo saacaduhu dhahaya waxba ay ni qabanayaan waana aragna uu noo qabtay maanta anigu marqaatina waa inuu wax badan uu qabtay wurina waxaan ahay taageerihiisa ahay anigu uma qorin inuu qabiilkayga yahay uma qorin inuu adeerkay yahay uma qorin wax kale uu lacag siiyay laakiin midnimada Soomaaliyeed iyo taariikhda Soomaaliyeed inuu baalka galo oo lagu daydo waayo ma jirin qaab wax u qabto madax u qabato